السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة ساعات قصة مانتا انتينا بلابين قصة مانتا وحان ربينا وكحسوسيو سوبقشة كانال كان يحتاج تامركي كوبات فلن سبسكرايب صار فيديو بنا لايك صار لأنه وذاك أصحاب سعادة وشير كرانيا مقال كان وحي تلاقي تصالح yaad isleedahay alleelahe kanaalkani uu ku hormari karaa qaybta hoose ee commentiga nugula wadaag fariintaada mar labaad ku soo dhawow qisada maanta. dhalinyaro ayaa waxay ka codsadeen oday da'aha laguna magacaabi jiray odaygii xigmadaha inuu la wadaago ama uu uga sheekeeyo qiso. odayguna isagoo ka faa'iidaysanaya jaaniska la siiyey ayuu uga sheekeeyey qisadan isagoo dareensiinaya nuxurka shay aan kula wadaagi doono. qisaduna waxay ku bilaabmaysaa sidan: nin taajirka ahaa magaalada uu odaygani ku noolaan jiray ayaa waxa uu damcay taajirku inuu safro soona sahamiyo tuulooyinka ka ag dhowdhow si uu bal ganacsigiisa u faafiyo. waxay sidaa ahaataba ninkii taajirka ahaana uu bilaabo safarkiisa. intii uu ku guda jiray waddada ayaa waxa ka dhammaaday sahaydii uu sii qaatay ha ugu darnaatee biyuhu. ninkii taajirka ahaa isagoo yaaban ayaa nasiib waxa ku soo baxay nin reer baadiye ahaa oo isaga laftarkiisu magaalada ka soo baxay oo safar ahaa oo magaalo kale ku sii socday. isla markiiba ninkii taajirka ahaa waxa uu ka codsaday biyaha uu sito ninka reer baadiyaha ahaa inuu bal wax ka siiyo ama uu waraabiyo. waa jaanise ninkii reer baadiyaha ahaa waxa uu ku jawaabay kabashada biyuhu waa shilin. sheekadu markay bartaasi marayso ninkii taajirka ahaa isagoo fikiraya inay waa nin lacag haystay ayaa waxa uu yidhi kabashada biyuhu hadday shilin tahay caagada biyaheed wadataa waa imse shilin. ninkii reer baadiyaha ahaa ka fikri maayo meel dheere waxa uu ugu jawaabay caagada aan sito waa 10 kabasho, taas micnaheeduna tahay inaan kaa siinayo 10 shilin. ninkii taajirka ahaane waa markii horeba nin lacag iska haystay 10 shilin. inta uu ka soo bixiyey jeebkiisa ayuu gacanta ka saaray kuna yidhi hooyo sii biyaha. ninka reer baadiyaha ahay horaanku ugu sheego ka fikri maayo meel dheere. isla markiiba waxa uu ku cararay 10 shilinoo inta uu haf leeyri ayuu jeebadkiisa ku riday. ninkii taajirka ahaana si yaroo xaraga leh ayuu ka qaatay biyihii oo isla markiiba ilaa waa nin haraad hayay kabasho biyaa ayuu qac ka siiyey. sheekadu markay bartaa marayso goor ay ahayd duhur ayaa waxay ku wada nasteen geed. ninkii taajirka ahaa boorsa uu watay inta uu kala furay ayaa waxa uu ka soo saaray hilib shilan oo duwan oo solon. isla markiiba inta uu cantoogay ayuu ninkii reer baadiyaha saa u eego waxa uu ku yidhi arniyow waxaad rabtaa hilib, yacni hilib ma rabtaa? ninkii reer baadiyaha ahaa isla markiiba waxa uu la soo booday wasladda hilibkii waa imse shilin. ninkii taajirka ahaana waxa uu ugu jawaabay wasladda hilibku waa bilaash. cajiib. kadib markii la siiyey wasladdii hilibka ahayd inta uu cantoogay oo uu cunay ayuu u baahday biyo. inay biyihii uu haystay waa nin iibiyee oran kari maayo walaal biyaha wax iga siiye. waxa uu la soo booday cabdow waxaan u baahanahay kabasho biyee iga iibi. ninkii taajirka ahaana waxa uu ku yidhi hooyo inta aad ka cabi kartid kacab dabadeedna ii soo celi. markaasuu ninkii reer baadiyaha ahaa waxa uu yidhi hadda waxaan ku yidhi kabashada biyuhu waa imisa? ninkii taajirka ahaana waxa uu ugu jawaabay waar wax lacaga kaama rabee iska cabow markaad ka dheragtid ii soo celi. ninkii reer baadiyaha ahaa inta uu yaabay ayaa waxa uu weydiiyey su'aal ahayd waayo aad iiga iibin weyday biyaha? markaasuu ninkii taajirka ahaa ku yidhi naxariis ayaa dadka walaalaysa, lacagtuna wax qiimo leh ma aha.
dulucda, faa'iidada iyo xikmadaha aynu ka faa'iideyno sheekadani waxay tahay in naxariistu lagama maarmaan tahay. martabada noloshana meel kasta oo aad kaga jirtid, yacni haddii aad faqiir tahay iyo haddii aad taanjir tahayba, nolosha bini'aadanka inaad u naxariisatid inay lagama maarmaan tahay. waad ku mahadsan tahay dhamaysashada muuqaalkan. waxaan kaaga mahad celinayaa inaad soo gaadhid dhammaadka muuqaalka. fadlan waxaan rabay inaan mar labaad ku xasuusiyo soo boqoshada kanaalkani haddii aad tahay markii koowaad, subscribe saar, fideogana like saar, lana wadaag asxaabtaada aad la jeceshahay sheekada. mahadsanid.